gudoomiyaha aqalka sare ayaa 23 November 2019 si rasmi ah ugu gudbiyay hindis sharciyeedkan guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 45aad qodob xarafkiisa koowaad ee xeeroosaadka aqalka isagoo faray in guddiga inay uga howlgalaan hindis sharciyeedkan sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaasna mariyaan habraaca shuruucda ee golaha marxaladaha uu soo maray hindis sharciyeedka 2 December 2019 guddigu wuxuu la tashaday sida ugu habboon ee looga howlgeli lahaa hindis sharciyeedkan 5 December 2019 guddiga isagoo kaashanaya garyaqaanada aqalka sare wuxuu qodob u akhriyay afarta cutub ee ugu horeysa hindis sharciyeedka isagoo wax ka bedel ku sameeyay qodobka koowaad kan saddexaad qodobka shanaad qodobka lixaad qodobka toddobaad qodobka sagaalaad iyo qodobka tobanaad 7 December 2019 guddigu wuxuu sii waday akhrinta hindis sharciyeedka isagoo wax ka bedel ku sameeyay qodobka 11aad qodobka 14aad qodobka 16aad qodobka 17aad qodobka 21aad qodobka 22aad iyo qodobka 23aad 8 December 2019 guddigu wuxuu sii waday akhrinta hindis sharciyeedka isagoo wax ka bedel ku sameeyay haddana qodobka 24aad qodobka 32aad qodobka 33 qodobka 35 qodobka 38 qodobka 40 iyo qodobka 48 9 December 2019 guddigu wuxuu soo gabagabeeyay akhrinta hindis sharciyeedka isagoo wax ka bedel ku sameeyay qodobka 50aad 52 59 iyo 63 wax ka bedelka hindis sharciyeedka guddigu wuxuu sameeyay wax ka bedelka soo socda qodobka labaad oo ku saabsan eray bixinta sharciga waxa loo sameeyay lambar 1 ilaa 38 tirsiga tobanaad ee qodobka labaad ereyga documenti waxa fasiraadiisa lagu soo kordhiyay muuqaalada codadka iyo wax kasta oo loo adeegsan karo tixraac isla qodobka labaad tirsigiisa 34aad hagaajin qaab qoraal ah ayaa lagu sameeyay iyadoo lagu kordhiyay oo ay ka ururiso dowladda federaalka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir sidoo kale meel kasta oo ay ku jirto dowlad goboleed ama maamul goboleed waxa lagu bedelay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka saddexaad oo ka hadlaya dhisidda iyo horumarinta hanaanka statistikada qaranka farqadiisa koowaad xarafka ba waxa lagu soo kordhiyay marka laga reebo waxyaabaha la xiriira arrimaha ciidamada iyo amniga qodobka shanaad oo ka hadlaya ujeedooyinka iyo maamulka hanaanka statistikada qaranka iyo mabaadi'da xogta rasmiga ah farqada labaad xarafka ha oraahda si dhexdhexaad ah waxa lagu bedelay si waafaqsan sharcigan isla farqada labaad ee qodobka shanaad xarafka ra waxa lagu soo kordhiyay ereyga si qodobka toddobaad oo ka hadlaya shaqooyinka hay'adda statistikada qaranka farqadiisa koowaad xarafka qa waxa lagu soo kordhiyay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe federaalka isla farqada koowaad xarafka sa in la sameeyo meel lagala xiriiro hay'adda caalamiga waxa lagu bedelay in la sameeyo xafiis qaabilsan xiriirka hay'adda caalamiga qodobka sagaalaad oo ka hadlaya awoodaha iyo shaqooyinka golaha maamulka farqada toddobaad waxa laga tiray oo kale iyada oo lagu kordhiyay oo la xiriirta statistikada qodobka tobanaad oo ka hadlaya waajibaadka ammaano ee golaha maamulka farqada koowaad xarafka da hay'adda federaalka ee ku shaqada leh waxa lagu bedelay wasaaradda maaliyadda isla farqadan xarafka ra inuu si waafaqsan sharciga iibka u aasaaso sharci ku habboon iibsiga waxa lagu bedelay inuu si waafaqsan sharciga iibka qaranka wax ku soo iibsado isagana iibiyo sidoo kale xarafka ra waxay ahayd nuqulka golaha xarafka ga qodobka 11aad oo ka hadlaya xubnaha golaha maamulka farqada koowaad xarafka ta waxa lagu soo kordhiyay isaga oo la tashanaya wasiirada qorsheynta ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qodobka 13aad oo ka hadlaya shuruudda magacaabista xubnaha golaha maamulka farqada afaraad ee ereyga iyo waxa lagu bedelay ama
ereyga iyo ayaa waxaa lagu bedelay ama. qodobka 14aad oo ka hadlaya xilka qaadis xubin ka mid ah ee golaha maamulka farqada koowaad xarafka ta kaas oo wasiirku ay la tahay mid khatar ah waxaa lagu bedelay kaas oo wasiirku hubinayo inuu yahay mid khatar ah. dhammaan wixii sharci ah oo ka hor imaanaya ama aan la socon karin sharcigan waxaa lagu bedelay sharcigan wuxuu baabi'inayaa dhammaan shuruucda ka hor imaanaysa sharcigan ama aan la socon karin. soo jeedin mudane gudoomiye sanatarada sharafta badan waxaa guddigan sharaf u ah inuu idiin soo gudbiyo guddoonka iyo golaha nuqulka ugu dambeeya ee hindisa sharciyeedka istaatiistikada qaranka oo uu ka soo shaqeeyo guddiga. ugu dambeyntii guddiga wuxuu soo jeedinayaa kana codsanayaa golaha sharafta leh in wax ka beddelka hindisa sharciyeedka ee kor ku xusan loo aqbalo sida uu yahay islamarkaana gudhig u noqdo dooda golaha. waxaana soo dhoweynaynaa talooyinka wanaagsan ee sanatarada sharafta leh.